waxaan ahaa 14 jir waxaana dhacdadan ku qabsatay duhur sabti ah bishii la soo dhaafay anigoo jooga magaaladayda yar aniga iyo saaxiibadayda ugu dhow ila iyo Leyla ayaan ku soconay wadada anagoo caajis la ildaran markii aan istaagnay meel u dhow baarka ila ayaa soo jeedisay in aan samayno caqabada TikTok ee loo yaqaan garaacista albaabka oo la cararo indhahaygu waxay qabteen guri baarka ka soo horjeeday wuxuu ahaa guri duug ah balse aan gebi ahaanba cidlo ahayn waxa uu lahaa barandho ballaaran dabaq duugoobay oo qoryo ka samaysan iyo bir adag oo daboolaysay dhammaan daaqadaha tani waa hadaf ku habboon ayay Leyla tiri waan u dhaqaaqay neef dheer ayaan qaatay kadibna cagta ayaan si xoogan ugu dhuftay albaabka dhawaaqa ka dhashay ayaa aad u qayliyey anigana cabsi ayuu igu beeray kaftan keliya ayaan ku qayliyey anigoo durba ka cararaya sidii inaan waxba dhicin albaabku ma furmin ilaa aan wadada gaarnay laakiin markaan dib u eegay waxaan arkay haweeney dhar cad xiran oo taagan barandhada guriga waxay si aamusan noo eegaysay ma aysan hadlin ma aysan qaylin xitaa ma aysan dhaqaaqin keliya way istaagtay indhaheeduna way nagu dhegnaayeen waan qoslay anigoo isku dayaya inaan iska indho tiro balse qaabka ay noo eegaysay wuxuu maskaxdayda geliyey cabsi qoto dheer qiyaastii 5 daqiiqo kadib aniga iyo ila waxaan gaarnay dhowr baloog oo naga fog gurigii annagoo qorshaynayna inaan tagno dukaanka barafka markaas ayaan maqalnay onkod fog waxay u eg tahay roob ayay tiri ila haa aan guriga ku laabano ayaan ku jawaabay markii aan isla mar qura wareegnay labadeenuba waan istaagnay haweenaydii ayaa taagnayd dhinaca kale ee wadada iyada oo ku tiirsan tiir dharkeeda cad ayaa dabaysha la ciyaarayay waan istaagay ila way dareentay sidee ayay ilaa hadda noo soo raacday ayay tiri iyadoo codkeedu gariirayo cabsi qabow ayaa dhabarkayga ku faafay aan dhaqso u soconno ayaan ku idhi waan dardargelinay socodkeenna balse iyadu way naga daba imaanaysay mar kasta oo aan gees u leexano waxaan mar kale ku arki jirnay iyada oo na sugaysa dhammaadka wadada arrintani waxay dhacday 3 ilaa 4 jeer ila waxay ku dhawaatay inay ooydo markaas ayaan ku qayliyey waan ka xunahay haweenaydii way istaagtay madaxa ayay hoos u foorarisay kadibna iyada oo aan hal eray oran waxay u dhaqaaqday dhinaca 3 qashin oo wadada yaalay waxaan si cad u xusuustaa wixii xigay xayawaan yar oo u eg raackoon ayaa ka soo baxay mid ka mid ah qashinada isaga oo biisa duug ah cunaya si kedis ah ayay haweenaydu ugu booday qoorta ayay ka qabatay irka ayayna kor ugu qaaday xayawaanku wuu qaylinayay jirkiisuna wuu gilgilmayay wayna eegtay sida ay hubinayso inaan daawanayno kadibna jeebkeeda ayay gacanta gelisay waxayna ka soo saartay mindi intaanan fahmin waxa dhacaya waxay si arxan darro ah mindida ugu dhufatay xayawaanka weligay ma iloobi doono dhawaaqa hilibka la jarayo qaylada xanuunka leh ee xayawaanka iyo dhiigga ku daadanayay dhagaxa waxay sii waday ilaa uu jidhkii gebi ahaanba burburay waxay ahayd muuqaal si toos ah uga yimid filim cabsi ah ila way qaylisay haweenaydii way istaagtay balse weli waxay haysay jidhkii burburay waxayna eegtay ilbiriqsi kadibna waxay ku tuurtay xayawaankii dhintay dhinaceenna waxa uu ku dhacay dhulka wax ka yar 3 cagood naga fog tani adiga ayaad noqon kartaa marka xigta ayay tiri codkeeduna wuxuu ahaa mid qabow oo aan shucuur lahayn ilama sugin way carartay aniguna ma dhaqaaqi karin lugahaygu way adkaadeen maskaxdayduna way madnayd haweenaydii way qososhay qosol aan caadi ahayn mid dheer oo naxdin leh kadibna waxay u dhex baxday hooska u dhexeeya laba guri markaan maqlay ila oo magacayga ku qaylinaysa meel fog jidhkaygu ugu dambayn wuu dhaqaaqay waanan orday ma joojin ilaa aan guriga gaarnay albaabada waan xirnay daahyadana waan laabay annagoo halkaas ku fadhiisanay muddo dheer waalidiinteenna uma sheegin maxaan oran lahayn habeenkii ma seexan karin mar kasta oo aan indhaha xiro waxaan arkayaa iyada oo taagan dhinaca wadada maalintii xigtay ayaan dib ugu laabtay wadadaas anigoo baaskiil wata anigoo isleh wax walba maskaxdaada ayay ku jireen laakiin qashinadii weli way yaaleen agtoodana waxa yaalay dhibco madow oo dhiig ah wax ka badan 1 sano ayaa ka soo wareegay mar dambe ma arag laakiin mararka qaarkood marka aan habeenkii keligay socdo waxaan dareemaa sidii qof iga daawanayo meel aanan arki karin Leyla mar dambe marnaba ma soo jeediso caqabado TikTok ah waxaan u malayn jiray in garaacista albaabka oo la cararo ay tahay madadaalo nacasnimo ah oo aan wax khatar ah lahayn albaab ayaad garaacdaa waad qoslaysaa kadibna waad carartaa adigoo duubaya sida dadka u xanaaqaan wax walba waxaa loogu talagalay aragtiyo TikTok ah maalintaas kuleylka ahayd aniga iyo asxaabtaydu waxaan u dhaqaaqnay sida ciyaar annagoo aan marnaba ka fikirin nooca khatarta ah ee aan isu soo dhaweynay markaan hadda dib u milicsado waxaan garwaaqsaday sida ay u ahayd nacasnimo buuxda marna ma ogid qofka dhab ahaan ku jira albaabka aad garaacayso dadka qaar ma aha kuwa qosla qaarna waa kuwa khatar ah waxay ahayd in ay noqoto duhur kale oo caajis ah xilliga kuleylka aniga Jackson iyo Hug waxaan ku wareegaynay magaaladeena yar annagoo waxba samayn markaas ayuu Hug soo jeediyey fikradda bal aan samayno garaacista albaabka oo la cararo ayuu yiri waa wax fudud waxaad garaacdaa albaabka qof aadan aqoon waad carartaa adigoo duubaya jawaabtiisa aad bay u qosol badan tahay waxay u muuqatay wax doqonnimo ah balse waxaan ahayn wiilal dhalinyaro ah oo caajis ah sidaas ayaan ku aqbalnay waxaan ku bilownay xaafado qurux badan halkaas oo dadka badankoodu ku qayliyaan ama albaabka si xanaaq leh u furaan hal haweenayda ah ayaa nagu soo carartay iyadoo usheeda ku hanjabaysa nin kale ayaa albaabka u soo baxay isaga oo qaylinaya shaati laan ah waxaan u qosolnay ilaa neeftu nagu yaraato kadib waxaan go'aansanay inaan u sii gudubno bariga magaalada halkaas waxaa ku yaalay waddo cidlo ah oo ay ku yaaleen dhowr guri oo kala fog mid ka mid ah guryahaas ayaa si gaar ah u soo jiitay indhahayga wuxuu ahaa guri duug ah saqaf bir ahna wuu lahaa aad buu u godoonsanaa uma malaynayo in qof ku nool yahay ayaan iri anigoo garbaha ruuxaya halkaas ayay ahayd in aan iska tagno laakiin Jackson wuxuu farta ku fiiqay albaabka balkan aynu tijaabino albaabku wuxuu ahaa mid bir ah oo culus dabaqii hortiisa yaalay wuu dilaacay daaqaduhuna way duugoobeen waxaan u istaagnay dhowr ilbiriqsi dhammaanteena annagoo ka fikirayna in aan garaacno iyo in kale ka hor inta aan go'aan gaadhin
Jackson ayaa si xoogan albaabka u garaacay. Dhawaaqa ka dhashay wuxuu u ekaa mid rasaas ah guryihii kale. Dadka deganaa waxay qaadan jireen waqti ka hor inta aysan albaabka furin. Laakiin gurigan albaabku isla markiiba wuu furmay. Nin ayaa soo baxay. Waxay u muuqatay sidii inuu durba albaabka gadaashiisa taagnaa. Wuxuu ahaa nin weyn, dheer, timaha dhaadheer oo garbaha gaadhaya. Wuxuu u ekaa nin dhexe ah. Wuxuuna xirnaa maro kalluumaysi oo dhiig cas oo madow ku daatay. Burbir ah oo dhiig ah ayaan dareemay markuu soo baxay. Ma uusan hadlin. Wuxuu keliyana eegayay, kadibna hal talaabo ayuu hore u qaaday. Markii hore waxaan u qaadanay in ay tahay qayb ka mid ah kaftanka. Waxaan sii waday duubista anigoo qosol cabsi leh samaynaya, bal eegtan ayaan idhi. Ninkani runtii wuu xanaaqsan yahay. Isla markiiba wuu nagu soo orday. Indhihiisa wax ciyaar ah kama muuqan. Waan cararnay. Anigu waxaan horkacayay. Hug dhinacayga ayuu la socday. Jacksonna wax yar ayuu naga dambeeyey. Waxaan maqli karay tallaabooyinka ninka oo si culus dhulka ugu dhacaya. Marba marka ka dambaysana soo dhawaanaya. Waxaan u malaynaynay inuu joojin doono, inuu nagu qaylin doono sida dadka kale. Laakiin wuu sii waday. Markaan wareegnay gees, Jackson wuu siibtay. Dhulka ayuu ku dhacay isagoo isku dayaya inuu istaago. Ninkii wuu gaaray. Wuxuu ka qabtay dhabarka funaanada. Wuxuuna kor u qaaday sidii ilmo yar. Jackson wuu qayliyey, haye maxaad samaynaysaa? I caawiya. Aniga iyo Hub waan naxnay. Waxaan weli ku jiray duubis toos ah. Ninku wuxuu soo saaray mindi dheer oo dhalaalaysa. Qoraxdu waxay ka dhigtay mid iftiimaysa. Adinku dhibaato ayaad raadinayseen, ayuu yidhi. Dhibaatadiina waa idinla soo jawaabtay. Wuxuu igu amray inaan kamarada u jeediyo. Saaxiibadiin weli way daawanayaan. Kadibna wuxuu bilaabay inuu mindida ku dhufto Jackson. Ma awoodin inaan wax samayno. Waxaan istaagnay annagoo ooyaya cabsi awgeed. Qaylada Jackson ma ahayn mid binyaadan caadi ah. Waxay ahayd mid nafta jaraysa. Ninkuma uusan istaagin ilaa jidhkii Jackson burburay. Dhiiguna ku daatay dhagaxa wadada. Taleefankaygii wuu iga dhacay. Lugahaygu waxay noqdeen kuwa qalalan sida dhagax. Hug ayaa gacanta iga qabtay, igu qayliyey, ordo. Wuu ina dili doonaa. Waan cararnay annagoo gargaar u qaylinayna. Ugu dambayn waxaan gaarnay saldhig shidaal. Waxaan gudaha u galnay. Albaabkana gadaashayada ayaanu ka xirnay. Hug wuxuu ku qayliyey shaqaalihii. Booliiska u yeera. Saaxiibkeen waa la dilay. Markii booliisku yimaadeen, waxaan u sheegnay wax walba. Waxay ninkii ka heleen gurigiisii, isaga oo dhiig ku daatay, fadhiya qolkiisa fadhiga. Jidkii Jacksonna wuu yaalay. Magaciisu wuxuu ahaa Howard. Wuxuu hore uga shaqayn jiray dukaanka kalluunka ee magaalada. Kadib markii xaaskiisu ka tagtay, maskax ahaan wuu burburay. Gurigiisa waxaa laga helay xayawaan la jarjaray. Markii aan albaabkiisa garaacnay, wuxuu durba diyaar u ahaa inuu wax dilo. Haddii keliya aanan albaabkaas garaacin, Jackson maanta wuu noolaan lahaa. Hug mar dambe ma hadlo. Duubistaydii tooska ahayd waxay istaagtay markii taleefanku iga dhacay, balse kuwii daawanayay waxay sheegeen inaysan weligood iloobi doonin qaylada Jackson. Aniguna weli waan xusuustaa ilbiriqsigii uu garowsaday inuusan ka baxsanayn. Mar dambe marnaba ma ku laaban doono qaybtaas magaalada. Mar kasta oo aan arko albaab bir ah oo culus, waxaan maqli karaa furitaankiisa. Waana xusuustaa waxa dhaca markaad u malaynayso inaad duubayso kaftan aan waxba ahayn, adigoo ogaanaya in waxa albaabka gadaashiisa ku jira uusan ahayn binyaadan, balse uu yahay bahal sugaya. 3 habeen oo isku xiga, saacadda 3:12 daqiiqo subaxnimo si sax ah. Albaabkayga hore waxaa ruxayay garaac cabsi leh oo xoog badan. Mar kasta marka aan albaabka eego, waxaan arki jiray wiilka dhibka wada ee deriskayga oo cararaya isaga oo qoslaya. Habeenkii koowaad waan iska dhaafay. Habeenkii labaad waxaan ogaaday in si ula kac ah loo samaynayo. Habeenkii saddexaad arrintu aad bay ii xanaajisay. Markii aan la hadlay aabihiis, mudane Jacker Cart, wuxuu keliya dhoola caddeeyey oo yidhi, wiilal waa wiilal. Maalintii afaraad waan ka daalay. Waxaan isku diyaariyey agagaarka albaabka. Qaxwo ayaan gacanta ku hayay. Taleefankaygana waxaan ku furay kamarada albaabka, anigoo sugaya inaan wiilkaas baro cashar uu weligiis xasuusan doono. Sida jadwalkiisii ahaa, saacadda 3:12 daqiiqo ayaan arkay wiilkii oo si kalsooni leh ugu soo dhawaanaya jidkayga, isagoo u haysta in cawaaqibku yahay khuraafaad. Ilbidhiqsi uu cagta dib ugu celinayay si uu u garaaco, ayaan si lama filaan ah albaabka u furay. Wuu caddaaday inuusan filayn in la qabto. Wuxuu dib u dhacay. Tallaabadii ugu sarraysay ee barandadaydana wuu ka dhacay. Jidkiisu wuxuu u duulay sida qof ka soo dhacay buundo gaaban. Waxaan maqlay dhawaaq qarac ah oo la socday qayladiisa xanuunka leh. Waan dhimanayaa. Waan dhimanayaa. Waxaan istaagay anigoo yaaban, anoon hubin inaan ambalaas waco ama qoslo. Gudahayga waxaan dareemayay farxad qarsoon. Wiilka yari si degdeg ah ayuu u helay karmadii uu mudnaa, laakiin ka hor intaanan caawin, aabihiis ayaa ku soo orday wadadayda. Wuxuu wiilka kor u qaaday, wuxuuna igu bilaabay qaylo, adiga ayaa wiilkayga tuurtay. Waan ku dacwaynayaa. Tuurnay ayaan idhi. Wax walba waxaa duubay kamarada albaabka. Haddii aad rabto, booliiska ayaan tusayaa. Intaan dooda sii wadin, baabuur booliis ah ayaa jidka istaagay. Waxay dhegaysteen sheekadayda, waxay daawadeen duubista, dabadeedna waxay u sheegeen mudane Jacker Cart wixii aan jeclaa inaan maqlo. Sayid, wiilkaagu si sharci darro ah ayuu u soo galay gurigan, wuxuuna dhib u geysanayay milkiilaha. Sida xaqiiqada ah, wuxuu helay cawaaqibka ficiladiisa. Wejigiisu ma muujin canaan. Maya, wuxuu ahaa wejiga qof ballanqaadaya aargoosi. Waan arkay isaga oo wiilka ku ridaya baabuurka, kuna sii jeeda isbitaalka. Markaas ayaan ooyey, anigoo u malaynaya in arrintu halkaas ku dhammaatay, laakiin waan qaldanaa. Habeenkii, anigoo sariirta jiifa, ayaan isku dayay inaan seexdo anoon ka welwelin albaabkayga. Wakhtiga saxda ah ma xasuusto, balse wuxuu ahaa kadib habeen dhexe markii aan ku toosay cod khafiif ah oo hoosta iga imaanaya. Markii hore waxaan is iri gurigu wuu degan yahay, laakiin cod kale ayaa yimid, kadibna mid kale. Tallaabooyin culus ayaa ku soo dhawaanayay, dabaqyada oo ku qaylinaya hoosta kaba culus. Calool xanuun ayaa igu dhacay. Waxaan gaadhay taleefankayga, waxaan furay feejignaanta kamarada albaabka, waxaanan arkay in la daboolay. Waan garwaaqsaday. Wuu soo noqday si uu u aargoosto. Waxaan qabsaday toosh bir ah oo weyn, waxaanan si tartiib ah ugu dhaadhacay jaranjarada. Mudane Jacker Cart wuxuu ku jiray
gudaha gurigayga wuxuu usoo gurmanayay jaranjarada isagoo afarta lugood ku socda sida xayawaan. waxaad mooday inaad iga dhuuman karto ayuu yidhi isagoo qosol naxdin leh samaynaya. laakiin hadda waan gudaha ahay. indhihiisu waxay ka iftiiminayeen mugdiga wuxuuna u ekaa mid ku raaxaysanaya cabsidayda. waxaan dib ugu cararay qolka hurdada, albaabkana waan xiray. tallaabooyinkiisa ayaa ku dhufanayay jaranjarada. waxaan wacay lambarka degdega ah ee 911 anigoo gariiraya. wuxuu bilaabay inuu albaabka ku garaaco si waali ah. albaabku wuu gariirayay garaac kasta. boolisku way imanayaan ayaan ku qayliyey, laakiin wakhtigooda ma iman doonaan ayuu ku jawaabay. qoryihii albaabka ayaa bilaabay inay dilaacaan. waxaan eegay qolka, waxaanan arkay qasacado bir ah oo aan maalintaas ku isticmaalay shaqo guri. waxaan qabsaday anigoo og in noloshaydu ku xirnaan karto. ilbidhiqsi kadib albaabku wuu burburay. isagoo wejigiisu qaloocan yahay, indhihiisuna gubanayaan, ayuu igu soo duulay isagoo dhagax weyn wata. dhibicdii labaad ayaa igu dhacday garabka. xanuun daran ayaana igu fiday. adrenalin ayaa igu qarxay. waxaan qasacadaha ku dhuftay madaxiisa. dhawaaq khafiif ah oo naxdin leh ayaa dhacay. wuxuu u dhacay sida qof xadhig laga jaray. markii boolisku yimaadeen waxay i heleen anigoo kor taagan, neefsanaya, qasacadihii weli gacanta ku haya. mudane jacker cart waxaa loo qaaday isbitaalka si yaab leh, isla kan uu wiilkiisu ku jiray. dhacdada waxaa warbaahinta gobolku ku tilmaantay isdifaac sharci ah. aniguna waxaan ugu yeeraa karma laba qaybood ku shaqaysa. hadda albaabadayda waa la xoojiyey, kamaraduhuna waxay leeyihiin kayd dheeraad ah. qasacadihii weli waxay yaalaan agta sariirtayda. mudane jacker cart waxaa loo qaaday isbitaalka si yaab leh, isla kan uu wiilkiisu ku jiray. dhacdada waxaa warbaahinta gobolku ku tilmaantay isdifaac sharci ah. aniguna waxaan ugu yeeraa karma laba qaybood ku shaqaysa. hadda albaabadayda waa la xoojiyey, kamaraduhuna waxay leeyihiin kayd dheeraad ah. qasacadihii weli waxay yaalaan agta sariirtayda.